Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Xasan Kaafi Channel oo aad ka heli doontaan waxbarashada dugsiga sare English Form 4 buugga hadduu ilaahay ka raali noqdo lagu turjumo af Soomaaliga. Daawasho wacan ayaa idin leeyahay. Markaad daawataan kadib waxaan rajeynayaa inaad subscribe dhihi doontaan channelkan, aad furan doontaan gambaleelka. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. English Secondary Form 4 book waa buuggii dugsiga sare ee Ingiriiska. Buuggan dugsiga sare ee Ingiriiska qaybtiisa C oo ah vocabulary. Hadduu ilaahay ka raali noqdo activity 1 ayaan sharxi doonaa ku saabsan vocabulary, ereyo. Ereyadan waxa aan siinay macno English ah. Ereyadu waa English, waxaan ku tarjumnay English, saas daraadeed English to English aan ereyada jawaabaha ku bixinay, laakiin af Soomaali ayaan ku tarjumi doonaa. Page-kan waa 154 qaybta aan qaadan doono maanta. Activity 1 we anaga explain waxaan sharxeynaa the meaning macnaha of the following words, ereyadan soo socdo, and phrases iyo kooxo ereya ah as used sida loogu isticmaalo in the passage. Sheekada ayaanu sharxi doonaa on allergies oo ah sheekadii xasaasiyadaha. A oo ah hypersensitivity. Hypersensitivity ereygan a condition waa xaalad in which taasoo the normally protective immune system difaaca jirka ee normalka ah has uu qabo a harmful effect ee saameyn daran on the body oo ku qabo jirka. Saameyn waxyeeleynayso, harmful waxyeeleyn waa, effectine saameyn. Marka saameyn waxyeeleynayso on the body oo ku qabo jirka. B immune system a complex waa isku dhaf network of cells unugyo isku xiran and proteins iyo borotiino that defends kuwaasoo difaacayaan the body jirka against ka difaacayaan infection ka difaacayaan. C high fever a seasonal rhinitis xasaasiyad xilila ah resulting from taasoo ka dhalanayso an allergic reaction falcelin la xiriirta xasaasiyad to pollen oo ah xasaasiyadda pollinka. Pollen waa pus fuusho itchy iyo cuncun. Allergic asthma E this is asthma, tani waa xasaasiyad caused by oo sababo an allergic reaction falcelin la xiriirta xasaasiyad. Asmadan waxay ku dhacdaa neef mareenada, tubooyinka neefta sii qaado waana xasaasiyad. F a runny nose excess waa badashada nasal drainage dareeraha sanka ka imaanayo, badashada oo badanayo waa hargabka iyo markii la qabo. Diifka oo bataa waxaa la runny nose. G desensitization is a treatment waa daawo or amase waa daawo is a treatment waa daawo or amase a process waa qaab that diminishes kaasoo yareynayo emotional responsiveness jawaabidda dareenka, waxyaabaa la xiriira dareenka to a negative wax negative ah loo jawaabo to a negative wax negative ah loo jawaabo. Aversive naceeb or amase positive stimulus kicid dareemaha positiveka ay kacaan, dareemaha ay u kacaan si positive ah after repeated markii lagu celceliyo kadib. Exposure soo muujin to it asaga lasoo muujinayo lagu celceliyo kadib. Exposure sidoo kalena waxaa la dhihi karaa xaalad oo qofka bini'aadamka markii qabowga oo ka bato difaac la-aan darteed xanuun iyo waxyaabo ku dhaco waana la exposure, laakiin hadda soo muujin waa. H
antibody. These are proteins, kuwan waa proteino that help kuwaasoo ka caawinayo fight off inay iska caabiyaan la dagaalamaan infectionada and can provide waxayna sii karaan protection difaac against ay kasoo horjeedaan difaacaasoo ay kasoo horjeedaan getting soo gelidda ama soo gaaridda that disease cudurkaas again mar labaad soo gelid oo soo galo jirka ama soo gaarid oo soo gaaro. Trillion of a grain, it is a word waa eray used loo isticmaalo to show in lagu muujiyo the quantity cadadka of mice gelney that ranges taasoo tixan trillion u tixan. Trillion waa tiro. Drowsiness, a feeling waa dareen, pain, sleepy ahaanshaha sleepy mid hurdaysan ama mid rabo hurdo. An lethargic iyo tabar la-aan. Sleepiness waa la dhihi karaa. Marka drowsiness sleepiness waa la dhihi karaa hurdoon ama dareemid hurdo. Unpleasant causing waa sababida. Discomfort welwel. Unhappiness farxad la-aan. Repulsion naceeb. Disagreeable khilaaf ama iswaafaqid la-aan. Cure relief waa sii deynta oo sii daayo a person qof or amase animal xayawaan of the symptoms calaamadaha of a disease cudur or amase condition xaalad caafimaad. Depression feeling of severe despondency. Feeling waa dareemida severe despondency rajo la-aan. And dejection iyo farxad la-aan. Marka depression feeling waa dareemida of severe despondency rajo la-aan lack of hope. And dejection iyo farxad la-aan. Dejection sidoo kale waxaa la dhihi karaa disappointment niyad-jab. Blurred vision lack of sharpness of vision. Lack of waaweynta, sharp of vision aragtida nadiifka ah oo aad weysid. Resulting taasoo ay ka dhalatay in the inability awood la-aanta to see arkida fine details waxyaabaha sida fiican loo cadeynayo ama sida fiican loo faahfaahinayo oo aadan u faahfaahin karin aragti awoodeed la-aanteed. Marka blurred visionkan lack of sharpness of vision aragtida nadiifka ah oo aad weysid waaye sida cad ama si nadiif waxa u arki lahayd aad weysid. In the inability awood la-aanta to see arkida fine details waxyaabaha sida fiican loo arki karo oo aadan u arki karin adiga ama aadan u faahfaahi karin. Mast cell maxaa la dhahaa a type of a white cell waa nooc ka mid ah unugyada cadcad that's found kuwaasoo laga helo in the connective tissues nudayaasha wax isku xiro all through the body kuwaasoo dhammaan jirkoo idil ku jiro especially khaasatan under the skin maqaarka hoostiisa. Pollen a body substance waa walax budo ah produced oo soo saaro by the male part of flower qaybta labka ee fiyooraha that causes kaasoo sababayo the female party qaybta dhediga ah of the same flower ee isla ubaxaas ah of the same type of flower oo nooc ahaan ubaxaas ah to produce inuu soo saaro seeds miro. End of the lesson. Dhammaadka cashirka ayaan isla soo gaarnay. Thank you for you watching it. Thank you kumaasan tahay for you watching daawashadaada it videogan aad daawato. Remember xasuuso to subscribe my channel inaad subscribe dhahdo channelkayga dhiirigelin ayay ii tahay waa waxa aan kaa sugayo. Ilaahay ka raali noqdo aan rajeynaa inaad samayn doontid.